السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشركيني طبناد قيبتيسي أفراد ee ku saabsaneyd constraints kaasoo aynu caawa kusoo qaadan doono check constraint. haddaba check constraint shaqadeedu maxay tahay? check constraintku waxa loo isticmaalaa in ay ku hubiso isla mar ahaantaana ku xadido data la soo gelin karo column-kaas aad ku apply garaysay. check constraint badanaa waxa loo isticmaalaa integerka ama saan iraahdo column-ka lagu store gareynayo numberska. haddaba aynu tusaale ka soo qaadano. markaynu halkan nimaadno aynu soo furno new query kadibna aynu dooranno database. markaynu soo furno new query waxa aynu check constraint-kan ku apply gareynayna ID-gii oo lahaa table-keenii casharadeen hore ku soo qaadanay ee ahaa hargeysa. isla mar ahaantaana aynu ku apply gareyn doonaa column-kiisa ah ID. aynu isla hubino data ku store garaysan table-keen hargeysa ahaa. kadibna table-keenan waxay noogu jira 12 row ayaa inoogu store garaysan table-keenan oo waa kaynu casharadeen hore ku soo qaadanay. haddaba waxaynu doonaynaa inaynu check constraint ku xidhno column-kan ID ah oo aynu niraahno 15 qof wax ka badan yaan la soo gelin table-kan. bal aynu isla eegno inagoo qorayna ku wareegan maadaama oo uu table-kanu samaysan yahay oo aynan imika samaynaynin san ayayna noqonaysaa. aan in yar farta soo weynayo waxaan la leenahay alter sidaynu casharadii horeba kusoo baranay table hargeysa. kadib waxaaynu ku qoraynaa halkan baynu leenahay constraint-ga haddii aynu damaano inaynu iska delete garayno magaca aynu delete garayn doono hadhow aynu halkan ku qoraynaa oo ah h. kadibna constraint-ka aynu doonayna inaynu soo gelino aynu halkan ku qoraynaa oo ah check. kadibna column-kii baynu soo baas garaynaa oo aynu leenahay waa ID isla mar ahaantaana waa inuu ka yaraada 15 aynu leenahay. kadibna ku wareeganaynu sidan ku ran garaynayna aynu soo doorano marka si aynu haddaba isla hubino in column-kii ID ahaa lagu xidhay check constraint isla mar ahaantaana la xadiday value-yada la soo gelin karo ama lagu store garayn karo column-kan in aanay ka badanin 15 qof. bal aynu isku dayno haddaba in aynu qof ID-giisu yahay number 16 aynu soo gelino marka aynu isla eegno error-ka soo saaro. halkan sidaad ku wada aragtaan waxaan noogu diyaariyay hal insertion ama se hal row data-dii kaasoo aynu doonayno in aynu ku ogaano in table-keenii lagu xidhay check constraint column-kii ID ahaa inaga oo rowgan cusub aynu kusoo darnayna ID uga dhignay number 16 isla mar ahaantaana sida aynu wada arkayno ka weyn number 15. bal sidan aynu ku ran garayn haddaba ku wareegan sidaad aragtaan xaggan hoose waxa uu noogu soo saaray check constraint h la yiraahdo oo kan ah ayaa lagu xidhay column-kan ay ku leeyahay isla mar ahaantaana column-kan ID ah wax ka weyn lama soo gelin karo oo conflict occur buu ku leeyahay isku dhac ka dhacay meesha. sida ay tahay sidaas ayuu inoogu shaqaynayaa maxay ahayd toolay check constraint-kii aynu ku apply garaynay column-kii ID ahaa. haddaba sidee ayaad uga delete garayn kartaa check constraint-ka maadaama oo 15 wax ka badan imika aad doonayso inaad ka hayso? ku wareegani sidiisan hayno haado sababtoo marka dambe aynu isaga data gelin doonaa. haddaba bal aynu delete garayno check constraint-kan oo aynu meesha kaba tirtirno gebigiisaba. halkan aynu ku qoraynaa alter kadibna table baynu leenahay table-ka magaciisuna waxaan leenahay waa hargeysa.
kadib waxaynu leenahay drop constraint bin leenahay la yiraahdo h sidaas ayaynu ku rangaraynaa simple coding sidoo aragtaan command completed way all the way walaga saaray ka dhigan tahay marka check constraint ki aynu ku apply garaynay column-kan id ah sidee ayaynu ku ogaanaynaa aynu soo doorano table-keeni markii hore waa unaga diiday inaynu 16 kan soo gelino table-keena waxa uu check constraint kan h la yiraahdo ayaa haysta isla mar ahaantaana lama ogola in 16 lagu kaydiyo table-kan sida ay tahay hadaba maadaama aynu imika ka drop garaynay ama wasaynu meesha ka delete garaynay bal aynu rowgan ku soo darno table-keeni sida aragtaan wuxuu leeyahay one row affected all the way sidaas ayuu ku store gareeyay number 16 halkana saad ku aragtaan Selma Ismail female ah way soo gashay oo watan Selma Ismail sidaas ayaana loo saara isla mar ahaantaana loogu xiraa check constraint halkaas aynu joogay casharkeena. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.